shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogta baan soo salaamaya maanta baarlamaankeennii waxa qabsaday dabaajiir amba dibjiro ayaa qabsaday isku tagay waxa qabsaday mooryaan ururtay baa baarlamaankeennii soo gashay oo rag iyo dumar bale dad dhintay oo damiirku ka dhintay oo sharaftu ka dhimatay oo karaamadu ka dhimatay oo aqoontu ka dhimatay oo wadaninimadu ka dhimatay inay daba dhilif noqdaan mooyaane ayaa baarlamaankeennii maanta sortaga qabsaday waa kuwii gorgor eryanaya wadada way kuwii baa gudaha inoo soo galay haddana jaanis kale inagu heleen kuwii guryaha naga furaya kabahooda ka yaacay ba halkan yimid marka nabadi jirto nin walba laba nin buu noqonayaa laakiin marka loo yimaado kabtaydii ma aragta ka dhici doonta ayaan dar weeyaan niyad jab bay ku tahay ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisaba inuu dibjar iyo mooryaan iyo qarandumis iyo dabadhilif iyo jaasuus iyo waxa Soomaalinimada ayna dani ugu jirin oo boob ku soo weeraaday boob ma jiray markaan lagu dhulka joognay boob ku yimiday oo meel ay soo maraan jirin iyagoo qaawan wadanka soo galay iyagoo macawisista soo galay oo dibjira ayaa baarlamaankeena hor fadhiistay dawlad baa jirta meesha awood baa jirta sharci waa inuu yimaado waxani dad baa soo doortay ma oran karane waxa ku yimaadeen dibjirnimo dawlad kasta marka ay burburto ee soo kabanayso waxa soo meedhan baa yimaada meel walba oo meel kasta oo baarlamaan amba dawladda waxa dawladina u noqda waxa wasiir noo noqon waxana wasiir dawlad noo aha nuuca adarkaysan dibjirka adarkaysan mooryaanta adarkaysan wax alla waxay ku doodayaan ma jirto oo burburisay inuu qarankani dumo horo socodkaas diidayeen ciidamadii Soomaaliyeed bay Malaysia ku tilmaamayeen Malaysia waxa noqday marka adiga ku yeeriyeen ee sharciga kugu soo dabaaleen ee xaafadaha iga fura marka lahayd ma yuud baatiin markaas way waxa Malaysia noqday iminkana halkan waa la keenay sharcigana la idin marin qarankan Soomaaliyeed ma aha qaran dibjir hor joogsanayo dibjir ururay dadkan street boys ka ee dadkan dariiqa ku soo kula dhaqan Soomaaliyeed maaha dhaqan dad wax bartayna maaha dhaqan muslimna maaha waa dhaqan xun dhaqankani waa dhaqan dabadhilif waa qaran la duminayo waa dad la soo kreestay oo dal kale u shaqeynayo oo lacag ka soo qaatay waa dad la soo kreestay oo soo diray Axmed Madoobe iyo Dani iyo odagii 90 jirka ee jarbuuca oo eka ee fuqacada waa dad ay soo direen weeyaan waa aniga arkay consequence-gi wada aragtaan dhibaatada ka timid dabadhilifkooda kaysan Soomaaliya inaan dawladda garab istaagno weeyaan qarankeenu gacanteenu ku jira 10 dabadhilif dad iska qaban kari waayay manihin sharciga la marin nidaamka dawladeed baa la marin dibjirkana halkiisa la geyn waayo wuxuu ahayn buu ismooday dibjirku standard buu leeyahay waa inuu wax bartaa marka hore waa inuu aqoon iyo cilmi iyo garaad iyo garasho iyo bili aadanimo iyo ixtiraam iyo qadarin waa inuu yaqaan qofku meel kasto uu loo dhiibo waa inuu waxa leeyahay laakiin dibjir baa in qabsay dibjiro qarankeeni oo dibjir inqilaabay wax dhici kara ma maanta ciidan xoog laan leeyahay qaran dhisan baan nahay dibjir 10 inaan oo dibjir inama inqilaabi karayaan ragga halkan fadhiya xalaana fadhiyay qoladan international community-gu ma rabaan Soomaaliya inay doorasho ka dhacdo iyaga ayna lugoynayo lugu haynahay iyaga soo kaxeeyo meesha keenay iyaga ku haya waxan qalado Soomaaliya iyaga arkaya nimankii artilleriga baasuukayaasha sitay ee diyaaradaha kala soo degay iyaga arkaya ee bleega meel dagaal ka dhigay Muqdisho waa kamid weeyaan dawladdu waa inay waxan wax ka qabataa awoodeedu intay doonaysaa leekaato laakiin dawladnimo waa in la muujiyaa qof kastoona qarankani ayna dan ugu jirin waa in la qabtaa waa in la isgarab taagaa saddexda maamul ee xalaasha iyo gudoomiyaha Muqdisho Umar Finish waa in la isagtaaga nin kasto Soomaaliyeed horumarka jecel wala isagtaaga qaran baan u baahanay waa hadalkii u bataaliil ay sheegaysay qaran Soomaaliyeed baan rabnaa dadkan waa dadkii qaranka soo jeeda waa tuugadii waa dadkii xoolaha dhacay wixii ay dhacayeen bay doonayaan waxay doonayaan in la islaayo chaos buuq bay doonayaan ay wax ku helaan waa dadkii ku lacagaystay dagaalka waa dadkii ku lacagaystay ee guryaha ku dhistay ee maalqabeenka ku noqday dagaalada moryaanti baa inoo fadhiisatay baarlamaanki waa in moryaanta baarlamaanka laga saara moryaantani baarlamaanka waa in laga saara
sharciga waa in la mariyaa waa in loo sheegaa ninku hadduu jaahil murakaba yahay casaaka kama joogsanayo waa in loo sheegaa la yidhaha khadal axmarkii waad soo dhaafteen khadda axmarkii baad soo gasheen green lightkii waad soo dhaafteen red linekii baad socotaan waa in laba board loo dhiibaa wixii qalad iyo wixii kale waa in loo furaa wax la yidhaahdo waa in loo furaa meel waxay ku bartaan courses waa in loo furaa parliamentary waa courseskiisa qofka parliamentary haddii laga dhigo waa in wax la baraa sharcigii loo sheegaa laakiin nin reer baadiya oo isagoo qaawan yimid oo isagoo qorisita soo galay oo dadkii dilaya ayaa baarlamankiina maanta inoo dhex fadhiistay dib jiro mooryaan dad sharaf lahayn oo bilaa karaamada oo bilaa damiira oo dadnimo lahayn oo aqoon lahayn oo cilmi lahayn oo dabadhilifa oo jaajuusa ayaa baarlamankii inoo dhex fadhiistay oo baarlamankeena intaa leekaa 10 nin baa inoo dhex fadhiisatay waa in gacan wax laga qabto laga saaraa Soomaaliya waa in dalkeena aan garab istaagnaa nin hadla iyo mid dhaqaale bixiya iyo kuwa dadka gudihiisa jooga dalkan waa inaan soo joogsanaa madaxweynaheena waa inaan joogsanaa madaxweynaheena daacada waa inaan joogsanaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dawladda systemka jira institution ka dhisan waa inaan garab istaagnaa oon taageernaa wixii dalkeena duminayana waa inaan ka hor nimaadnaa inagoo mida oo gacmaha isaysan waxaanan ka hor tagno burburino oon baabiino inta inagayna baabiin lahayayna sugine dadka ciidamadeena Malaysia ku sheegayo waan iyaga aan burburinaa oo meeshooda ugu tagnaa aad baan idin salaamaya Soomaaliya meel kastoo dunida joogtaanba